xukuumadda Soomaaliland iyo ciidamada badda midowga Yurub ayaa kulan ku yeeshay markab dagaal oo saaka ku soo xidhay dekedda magaalada Berbera. markabkaasi oo ay leeyihiin ciidamada badda midowga Yurub gaar ahaan dalka Holland. kulankaas oo laga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa ammaanka gacanka cadmeed la iskana kaashan lahaa ammaanka cadmeed oo muhiim u ah isku socodka maraakiibta ganacsi iskaga gooshaysa. waxaana ay tababar u fureen ciidamada badda Soomaaliland. waxaana kulankaasi xukuumadda Soomaaliland uga qayb galay wasiir dawlaha amniga Maxamed Muuse Diiriye, taliyaha ciidanka badda Soomaaliland Admiral Cabdi Xirsi, wasiirka cadaaladda Axmed Cadare, gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed, gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed. waxayaguna u hadlay ciidamada midowga Yurub, madaxa howlgelinta ciidamada badda iyo taliye Raani. runtii waxaan maraynayaa in kulankeena halkan aynu isku nimid u midhadhali doono. anagu waan soo gudbinay baahiyahayagii iyo wixii qarankan u baahnaa. wixii aanu soo qabsanayna waa sheegnay, waxaad nala qabatayna waa sheegnay, waxa aan halka aynu ka soo jeedinay iyo waxa idinku soo bandhigteen intaba waxaan filayaa inaynu midhaheega sida ugu dhaqsaha badan aynu arki doono. cilmi iswadaarsanka ka dhacay waxa noo sharafa maanta in ay Soomaaliland nabad noqotay. markabkii ugu weynaa Netherlands calanka Stevliga iyo in maanta uu joogo halkan ay sharaf inoo tahay. insha Allah taala ay xigi doonaana kuwii dalxiiska iyo baaciska ku imanayay dooyo markab iyo helicopter kuwaasoo intuba ay doonayeen inay qabanayeen maxaan ku raadayay badbaadinta dadka. waxa kale oo ay tababarka ku siiyeen ciidanka raadaarada aanu hadda cusub aanu rakibanay ay tababar ku siiyeen oo anfici doona ilaalinta xeebta naashashka ka saaran iyo kuwa xeebaha yaalaba intuba waxay anfacayaan ilaalinta xeebta. saa daraadeed waxaad halkaa ka aragtaa in ciidankeenina hore u kacay, amnigeenina uu improvement weyn sameeyey iyo maxaan ku raadayay meel sare gaaray oo lagu soo aaminay maraakiib aad u qaali ah aad u dadka u leh shir. marka shirka waxa laga hadlayay dambiyada ka dhaca badda iyo coastal guardska ciidamadeena badda iyo xeerarka la xiriira iyo waliba hay'adaha kale la halmaala sida hay'adaha law enforcement agency-ga booliiska iyo security-ga iyo garsoorka cadaaladdu ay ka mid yihiin. marka wuxuu ahaa shir cilmiyeed ama seminar wax loo yaqaano la isku weydaarsaday aaraa inagu waxaynu hayno iyo iyagu waxay keeneen iyo sidii wax loo kala baran lahaa iyo iskaashi. aqoon isweydaarsigaasoo ahaa shuruucda badda iyo aqoon kororsi ciidamada badda iyo sidii badan looga faa'iideysan lahaa ciidamada militariga ee badda ee Soomaaliland. Here today and to be here with our partners from EU NAVFOR to demonstrate the EU's commitment to Somaliland, the EU's commitment to improving maritime security in Somaliland, to working with the Somaliland authorities, particularly with the Somaliland Coast Guard. And we have committed over the next 2 years to be here in Somaliland and to increase our presence and hopefully work with our friends and partners here to make the seas more safe, more secure and better for everybody from Somaliland. Thank you. On the fact of maritime security, on the legislation and on the maritime capacity building side. We support as the EU Naval Force the other EU bodies and the local authorities and the United Nations in facilitating this seminar. And I think that birthing in Berbera shows that we are ready for a next step. The security is in order. We train quite a lot with the Somaliland Coast Guard, and I think it's very great to be here. And I think everybody, especially kusoo beegmaysaa sanad guuradii ka soo wareegtay muddo 30 sano ka hor ay ugu dambeysay markab dagaal oo ku soo xidha marsada dekedda magaalada Berbera. sanadkaas oo ku beegnaa 1986 oo ugu dambeysay markab dagaal oo ku soo xidha dekedda magaalada Berbera. waa Muuse Jaamac Maxamed, Bulsha TV, magaalada Berbera.